meeshaan magaceeda waxaa la yiraahdaa Balhowda la yiraahdaa iyo Lajida meel la yiraahdaa sida dhiiga jirkayga dhaqahaadayo imikayga dhamaysay ku dheereeran tahay daawade haddii uu muuqaalkan ku soo gaaro fadlan like saar muuqaalka siina share garee si uu gaaro saaxiibo badan oo adigoo kale ah Maxamed Amiin Axmed oo ku magac dheer Jacaylow iyo Naxwo Asal Axmed waa wiil iyo gabar walaalo ah waxay ku nool yihiin meel miyi ah oo u dhaxaysa Balhowd iyo deegaanka Lajida ee ka tirsan degmada Xaraale warbixintan waxaad kaga bogan doontaa qofka uu yahay Maxamed Amiin Axmed oo ku magac dheer Jacaylow sida aad muuqaaladaba ku aragtaan man reemiyi ahba mise waa reemagal jacayl nolosha miyiga inuu ku noolaado horta dadka dhan asalkooda waxa waay waa reer baadiyo markaas si fiican fiirsatay qof kasta qof reer baadiyo waay ana hadarta waxaan malahay waxa jooga amalana too much laba bilood camal jooga amalana baadiyo ama Soomaali dhan baa jooga laba bilood camal jooga Nairobi ka mid Nairobi ku soo barbaaray laakiin hadarta waxaan jooga baadiyana ka jooga fahant saas darteed waxaan u imid baalka lira adiga qof kasta dalkiisa garad gadaal ugu soo qof kasta meesha ku dhasho gadaal ugu soo laabana Jacaylow iyo Naxwo waa wiil iyo gabar dhalinyaro ah waxay ka mid yihiin dhalinyarada bariyahan dambe aad uga soo muuqda isticmaalka aaladda TikTok waxay leeyihiin akoon uu ku qoran yahay magaca Jacaylow waxay si wada jir ah u soo gudbiyaan muuqaalo ay la jabinayaan heesaha dhaqanka yarta dheereeyada dunta maariila sida dhaftaan caloosha ku dhigan lahaa Jacaylow ayaa intii aan sheekaysanay iiga warbixiyay sida uu si maalinlaha ugu soo gudbiyo muuqaalada bartiisa TikTok maadaama uu joogo meel duur ah oo network-geedu uusan fiicnayn sidoo kalena aan lahayn meel mobilka laga dabaysto internet isticmaashid waliba si xawaare leh iyo inaad taleefanka waqti walba daba heshay sidee ku saacdaa wallahi saxaabo intaas bixi ugu saaciday baalka liraado horta waxa uu taa aniga dhagax baal ay dhahan dadka miyiga dhagax u yaqaanaan dad kale ay dhahan power bank loo yaqaano kaasa haysta marka kaasaan laba maalin ama saddex maalin camal ah in haya hal mar dhiibnaa magaalada dhiibnaa markaas oo nala soo dibay markii nala soo dibay kadib aan dadku u gudbinaa marka afar video ama camal aad duubana intuu naga maqayaan laba dhigaynaa ama hal kala si dhigaynaa intuu adiga waa ku suuqinaa intuu naga maqayaan sidaas dadku aysan yani wali aan iswaxba nooga weyn markasta u taaganaay dadkana inaan wax u soo dhigno oo saas afar la tagsa dhanka kale Jacaylow ayaa ii sheegay waxa uu ku jeclaaday inuu ku ciyaaro dhaantada oo heesaha kale iyo mataajilada uga doortay Jacaylow ayaa aaminsan hadafkiisuna uu yahay inuu bartaan ka sameeyo taageero aad u badan oo bartiisa ku xiran in ka badan inta bartiisa hadda ku xiran muuqaalada aad soo gelisaan waa muuqaalo adinkoo matalaya heesihii ciyaaraha ama dhaantooyinkii ciyaaraha idinkoo ku ciyaaraya maxaa ku doorateen maadaama ay jiraan entertainment badan ina adinku wax soo gudbisataan sidoo kale adinku riwaayada jishaan dhanka kale ina mutqaana heeso isku tuutaan laakiin ma ii sheegi karaa waxa ku jeclaateen ciyaaraha hidii dhaqanka wallahi saxaabo hidii dhaqan waxa ku jeclaan horta dadka dhan asalkooda waxa waay waa reer baadiyo markaas si fiican fiirsatay qof kasta qof reer baadiyo waay ana hadarta waxaan malahay waxa jooga amalana too much laba bilood camal jooga amalana baadiyo ama Soomaali dhan baa jooga laba bilood camal jooga Nairobi ka mid Nairobi ku soo barbaaray laakiin hadarta waxaan jooga baadiyana ka jooga fahant saas darteed waxaan u imid baalka lira adiga qof kasta dalkiisa garad gadaal ugu soo qof kasta meesha ku dhasho gadaal ugu soo laabana marka hidii dhaqankan waxa ku dooranay inaan 4 ilaa 10 saac hidii dhaqan kor u qaadno oo Soomaalimadii hore iyo waxa hidii dhaqanka maadaama dadkii dhamaa ay wada magaalo ama dadkii dhamaa wada hayaan anakan wax gaar oo yani hidii dhaqanka inaan soo jiidano ama dadka aan adiga kor u qaad hidii dhaqanka taas ugu talagalay Naxwo Asal Axmed waan jeclayn inay ka hor hadasho kaamirada ayaa haddana iga ogolaatay inay ka jawaabto su'aalaha aan weydiiyay waxayna ii sheegtay in sanadkan la joogo dadka miyiga iyo dadka magaalada jooga ay isku mid yihiin isku waxna ay isticmaalaan TikTok muuqaalada aad duubtaan adiga Jacaylow fikirkan ayaa kugu dhaliyay inaad wax duubtid walaalkayga yani inaan wax duubno oo dhaqanka iyo hidaha soo dhaweyno maadaama aan miyi joogno miyiga iyo magaalada isla mid noqoto sababtoo macnaha meeshan hadda TikTok baa isticmaalaa wax kasta qadka waa kala soconaa reemina waa nahay xoolaha naga dhex joognaa Xuseen Ali Xuseen Xaraale